السلام عليكم وفرحية كبيرة سيدو جيدانبا وحان آدو قحوما هاي اون مان تربا inaan ka hadlo dhalinyarada fanaaniinta oo kamida kooxda xidigaha geeska sidaad ogtiin baxamar ay tageen show ku lahaayeen waxay soo arkeen vaaniskoodi taageerayaashooda ay jeclaayeen weligood dhageysan jireen ay soo arkeen la soo ciideen u soo heeseen sa ogeydeen loo soo dhawiyay way baxeen hargeysa ka digeen gurigoodii hoygoodii u noqdeen meeshay deganayeen ku dhasheen airportka lagu sugaayay waa la qabtay waa la xiray maxaa loo xiray maxaa xamar u tagteen Soomaa aniga hadda farxiya kaba yaraa la dhahaa hargeysa weligay ma tagin aniga xamar ku dhashay tan soo leekaada fanaanad reer Muqdisho ayaan ahay hargeysa haddaan tago on show ka dhigto on taageerayaashayda vaaniskayga dadka ay jecel aan waqti la soo qaato oo xamar ku soo noqdo la xiro maxaa dareemi lahayd hargeysa dadka hargeysa joogan la hadlayo maxaa dareemi soo cusurnimo iyo xumaan iyo reer hargeysa nacayb kamaadan fahamteen dadka jooga ee xamar oo aniga saa ii xumeeyay horta saamtiin ay dareemayaan maanta taageerayaasha xamar joogay iyo dadka Soomaaliya jooga in dartood loo xumeeyay fanaaniinta walaalahooda ee u yimid ee waqtiga la qaatay jecel yihiin haddii lagu haysto calan ay huwadeen iyo calan ay isku dadadeen waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo farxiya fiska calanka left and right ay isugu duuduubi jirtay soo calanka Soomaaliland ma ahayn iska daa dawladda Soomaaliya shakhsi Soomaaliya farxiya fiska ku dhagan yahay arkay ama caynaya ama video soo duubay ma cambaaraynaya arkay ma dhicin fanaaniinta en ka timaada hargeysa markay adduunka tagaan shooyada waxa u bixiyo ummadda Soomaaliyeed ma aha qolo gaara ma aha qabiil fanaankuna qabiil ma laha siyaasad wax naga gala ma laha anaga shaqaan ku leenahay ma xaflad 18 May meel kasta lagu dhigaa qurbaha waa aragteen ummadda Soomaaliyeed tagto oo baashaasho oo ka tumata fanaaniintiina ku casuuntaan oo yimaada reer Soomaaliland dadka reer Soomaaliya asaf fanaan Soomaaliyeed ay ugu tagaan wax ka galay meesha waxa lagu haayo iyo waxa ka socda ma jirto shakhsi ahaan anigu markaan iska hadlo Soomaaliland ma nacbi jiritaankeedan jeclahay waa dal horumar samaystay waa walaalaheen cadow kuma ihi kama xumi haddii inta tago aan haddaan hees Soomaaliland aan u soo qaado oo niraahdo horumarkaad gaartay wanaagga samaysatay aad ugu faraxsanahay oo la ii xiro soo khalad ma aha ilmahaanu ma samaynba wiilashan fanaaniinta iyo gabadhan xiran maanta ma samaynba meesha way tageen hees jacayl ay ka qaadeen fanaaniintooda waxay waqti la qaateen taageerayaashooda Soomaaliland ha soo noqotay iyo Soomaaliland iyo kala go'nay Soomaaliya saxan iyo midna ma aysan dhihin qadiyadooda iyo waxay aaminsan yihiin wax ka galay shacabka Soomaaliyeed malaha ayaga fanaaniin baa loo arkaa fanaanku markuu af Soomaali ku heeso fanaan Soomaaliyeedna yahay waa fanaan Soomaaliyeed wax naga quseeya anaga qabiil iyo cid is haysata iyo niman maaragtay isu maaragtay adduunka isu kala gooshaayo oo birida isla qadaynaya saadaba isla cashaynaya dadkana waalaya shaqaan ku leenahay malaha hadii sheegayna shacabka reer hargeysa Soomaaliland jooga hadda jeceshiin fanka ama aad fanaan Soomaaliyeed inaad dhageysataan aad jeceshiin waxa ka dhacay hargeysa waxaan ka dhiidisaan hadda maanta anaga qurbahan joognaa sida wax u dhaceen ma ogin wadanka gudihiisa ma joogno ma naqaana falkaan cid ku kacday iyo dhalinyarada dad qofka inta qabtay xirxiray dad madaxa uma gafi karno dad madaxa ma cayn karno meesha dadkeena yaa jooga ummad Soomaaliyeed aa joogta Soomaaliland oo ma cayn karno ma cambaarayn karno ma xumayn karno laakiin waxaan ka xunahay dad fanaaniina oo walaalaheena oo yimid oo xamar show ka soo dhigtay in maxaa xamar u tagteen loo xiro يا حمر كحارنتمي فنانين ترى هرجيسة يا حمر كحارنتمي فنان كرئيس Soomaaliland يا أنا جي حلالي إنها هرجيسة ترشوا كدكتور لفولات تجي هذا عبد الرحمن تكتي كين خالد وها بحلوت ما يمش أو أنت صوب بلوت شوقي
waxaan baa ku dirayaa aan rabaa inaan la hadlo fanaaniinta reer Somaliland oo jooga qurbaha Sir Maxamuud aan soo qabsanayaa ugu horeeyo Sir Maxamuudow ka soo hadal arrintan fanaaniinta yaan la caburin waa dhalinyaro ubax waaye taageerayaashoodu xaafad kuma eka wadanna kuma eka adduunka dhan laga taageeraa waa inay fankooda xor noqdaan biri maxaa soo socota marka fanaan reer Soomaaliya ama xamar ku dhashay Hargeysa ma tagi karo taasad rabtiin la ku keenaa anagana Soomaaliya anaga soo keenna mid ama Somaliland la bax ama Puntland la bax ama Xamarland la bax xuduud malihin xuduud ilaahay ha laga baqo dhalinyarada la soo daayo waliba ceebta meesha ka dhacday gabar ku jirta wax xiran waxay ku sugan tahay xaaladeeda maanta ma ogin ilaahay ha laga cabsado waan ka xunnahay xidigaha geeska waxa idin ku dhacay fanaaniinta Soomaaliyeedna geesay ka wada yihiin waxa qaladka meesha ka socdo isku feeling baan ka haysanaa I'm so sorry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.